sideedii bishii Maarch 2014 dunidu oo dhan waxay ku baraartay dhacdo aan hore loo arag. Diyaarad rakaab oo weyn oo nooceedu ahaa Boeing 777-200ER oo sidee 239 qof ayaa si lama filaan ah u luntay, iyadoo ku sii jeeda Beijing oo ah caasimadda dalka Shiinaha. Tan iyo maalintaas, diyaaradda Malaysia Airlines ee duulimaad nambarkeedu ahaa MH370 waxaa loo aqoonsaday mid luntay oo aan weli si buuxda loo helin. dad badan ayaa weli isweydiinaya maxaa dhacay, halkee ay ku dambeysay diyaaraddii. labiyo 11:41 daqiiqo xilli habeenimo waqtiga Malaysia, diyaaraddu waxay ka kacday Kuala Lumpur International Airport iyadoo ku socotay Beijing Capital International Airport oo ah airportka caasimadda Shiinaha. safarku waxa qiyaastii 6 saacadood iyo 30 daqiiqo. diyaaraddu waxay mid ku socota xawaare caadi ah oo ku dhawaad 895 km/saacadii, iyadoo ku socotay heerka duulimaadyada caadiga ah ee masaafo dheer. diyaaraddu waxay siday 227 rakaab ah oo ka kala socday 15 dal. dadka ugu badan ay ahaayeen rakaab Chinese ah oo ka kooban 130 qof. sidoo kale waxaa la socday 12 shaqaale diyaaradeed ah oo ay ku jiraan duuliye iyo kalkaaliyihiisa. duuliyaha weyn magaciisu wuxuu ahaa Captain Sahira Ahmed Shah oo 53 jir ah, halka kaaliyaha duuliyaha magaciisu ahaa First Officer Faariq Cabdulxamiid oo 27 jir ah. bilowgii safarka wax walba waxay socdeen si caadi ah. jawiga cirku waxaa mid degan oo aan lahayn duufaan ama roob culus. duuliyaashu waxay la xidhiidheen xarunta duulimaadyada iyagoo u sheegay inay si caadi ah u socdaan. 8:30 daqiiqo kadib kicitaanka diyaaradda xilli ku beegan 1:19 daqiiqo kadib, duuliyaha weyn wuxuu yidhi Good Night Malaysia 370 oo macnaheedu noqonayo habeen wanaagsan Malaysia 370. tani waxay ahayd hadalkii ugu dambeeyay ee laga maqlay diyaaradda iyo duuliyaashaba. 1 daqiiqo kadib hadalkaas, diyaaradda ayaa si lama filaan ah uga baxday raadaarka rayidka iyadoo aan samayn wax digniin ah ama fariin degdeg ah oo laga helay. inkastoo ay ka baxday raadaarka caadiga ah, haddana raadaarka militariga ayaa muujiyay xog qarsoodi oo yaab leh. diyaaraddu waxay ka leexatay jihadii saxda ahayd ee ay u socotay, taasoo ahayd Beijing, balse waxay u dhaqaaqday dhanka galbeed waxaana u socotay xagga badweynta Hindiya. leexashadaas waxay ahayd mid u muuqata in qof si ula kaca u sameeyay, maadaama diyaaraddu aanay soo dirin wax digniin ah oo ku saabsan cillad farsamo. tani waxay keentay tuhun ah in qof ku sugnaa diyaaradda uu gacanta ku dhigay hagidda diyaaradda. markii la waayay diyaaradda, dunidu waxay bilowday raadintii ugu weyneed ee taariikhda duulista. dalal ka qayb qaatay raadinta waxaa ka mid ah Malaysia, Shiinaha, Australia, Mareykanka, Ingiriiska iyo wadamo kale oo gaaraya 26 dal. waxay isticmaaleen maraakiib militari oo baadhay badweynta, diyaarado gaar ah oo duulimaadyo raadisa sameeya, qalab casri ah oo lagu baadho badda hoose iyo qalab lagu raadiyo waxyaabaha qarsoon. aagga la baadhay wuxuu ahaa masaafo ka badan 120,000 oo kiiloomitir oo laba jibaaran, taasoo ka dhigaysa raadintii ugu ballaarneed ee taariikhda duulista diyaaradaha. muddo bilooyin sanado ayaa la raadinayay diyaaradda. wixii ugu weynaa la helay waxay noqdeen qayb yar oo ka diyaaradda ka mid ah, sida baalal iyo burbur yaryar, kuwaasoo ku soo caariday xeebaha jasiiradda Reunion iyo meelo kale oo ku dhow xeebaha Afrika ee badweynta Hindiya. laakiin qolofkii diyaaradda, sanduuqii madoobaa iyo meydkii dadkii saaraa midna lama helin. tani waxay sii kordhinaysaa walaaca lumitaanka dhacdadan, sababtoo ah haddii diyaaraddu ku dhacday badweynta, waxay ahayd inay raad cad laga helo, taasoo aan la helin ilaa maanta. maadaama aanay jirin caddaymo buuxa oo la helay baaritaan kadib, aragtiyo badan ayaa soo baxay. kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah qaar ka mid ah khubaradu waxay aaminsan yihiin in diyaaradda la afduubay oo qof ama koox ay u leexiyeen meel qarsoon oo aan weli la aqoonsan. waxaa jira tuhun weyn oo sheegaya in duuliyihii weynaa ee diyaaradda Sahira Ahmed Shah uu si ula kaca u baabiyey diyaaradda isagoo ku riday badweynta kadib markii uu qorshe qoto dheer sameeyey. aragti kale ayaa sheegaysa in diyaaraddu ay la kulantay cillad weyn oo elektaroonig ah, taasoo sababta inay lumiso awoodda isgaarsiinta, kadibna ay ku dhacday badweynta iyadoo aanay jirin qof ka badbaaday dadkii saaraa diyaaradda. qaar ka mid ah falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in diyaaraddu ay gacanta u gashay sirdoon caalami ah oo aan weli la shaacin, kuwaasoo sidii hub qarsoon ama qof muhiim ah oo diyaaradda saaraa awgeed loo leexiyey meel aan la garanayn. sannadihii dambe waxaa la helay xog muujinaysa in qaar ka mid ah aaladaha diyaaradda ay weli soo dirayeen calaamado daciif ah
saacada kadib markii ay diyaaraddu ka baxday raadaarka. tani waxay muujinaysaa in diyaaraddu ay duulaysay muddo dheer ka hor intii aanay ugu dambayn qarsoomin, laakiin xogtan weli looma helin caddaymo buuxa oo lagu xallin karo waayitaanka. dhacdadan waxay saameyn weyn ku yeelatay qoysaskii iyo eheladii dadkii diyaaradda saaraa. dad badan oo ka mid a qoysaska ayaa ilaa maanta murug iyo jahwareer ku nool, iyadoo aanay jirin wax xog rasmi ah oo ilaa hadda laga helay diyaaraddii iyo dadkii saaraaba. dowladda Malaysia waxay si rasmi ah u sheegtay in diyaaraddii ay luntay, laakiin weli lama shaacin sabab cad oo muujinaysa waxa dhacay. dhacdada diyaaradda MH370 waa mid abid lagu xasuusan doono taariikhda duulista diyaaradaha. waxay dunida baraysaa inay weli jiraan waxyaabo qarsoon oo aan weli xal loo helin, in tiknoolajiyadda casriga ahi aanay dhammaanba awoodin inay bixiso jawaabta dhabta ah. ilaa maanta su-aasha ugu weyni weli waa halkee ayay ku dambaysay diyaaraddii MH370.